weligaa bini aadanka raalli geli hays odhan raalli noqoni maaye casharkaana anigaa ku tusinayayna mari buu ka yidhi lacalahu inuu ahaa imaamu shaafici raximahullah isagiyo yeerkiisii baad soo maray maaragtaane tuulo dameer bay markaa wataan dameerka labadoodii midna ma saarna baa la yidhi way lugaynayaan dadkii tuulada joogay baa ku yidhi war labadan bilaa caqliga maxay ahaayeen maxay dameerka muu midkoodna dameerka fuulo midna muu kaxeeyo markaasuu yidhi aabba hadalka ma maqlaysaa haa dhegaysa buu yidhi hadalkaa qor haddana markaa odaygii baa fuulay tuulo kale ay soo mareen dadkii tuulada fadhiyey waxay yidhaahdeen war odaygan duqay bilaa naxariista waa maxay ilmaha yar daaliyey muu isagaa ka weyne uu ka dhaadhaco oo ilmaha yar muu dameerka saara bay yidhaahdeen markaasuu yidhi aabba taana qor buu ka yidhi uu ka dhaadhaco markaa isagii buu saaray haddana tuulo kale ay soo mareen markaasay dadkii yidhaahdeen war ilmahan bilaa damqashadii waa maxay bilaa naxariista odayga ka weyne aabbihiiyo da'da muu ixtiraamo uu dameerka uga dhaadhaco isagu lugeeyo isagaa ka xoog weyne markaa buu yidhi taana dhegayso haddana tuulo kale ay soo mareen ayagoo dameerkii labadoodiiba ay wada saaran yihiin markaabay dadkii tuulada afraad yidhaahdeen war labadan bilaa naxariistii waa maxay soo kuwa dameerkii dilay maamay ka dhaadhacaana markaasuu yidhi sow kumaan lahayn bini aadanka raalligelintoodu waa qaayo aan la gaadhi karayn haa waxaad ku dadaashaa haddaba allihii ku abuuray un raalligeli buu ka yidhi imaam ashaafici raximahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiistayoo oo u yimidayo waxa uu ku yidhi ma dhib baa kugu dhacday buu yidhi dhibaata masiibaad mooddaa inay ku haysatee markaasuu yidhi haa dhib baa igu dhacdo masiibo o dhan baa igu dhacday buu yidhi aniga oo maxay masiibada kugu dhacday buu yidhi wuxuu yidhi waxaan noqoday dadkii iyo aniga yacni dadkii cid aan la heshiisahay ma jirto cid walba waan kala go'nay buu yidhi hooyaday aabbahay waa kala dhaqaaqnay qaraabadii waan kala dhaqaaqnay xaaskiiyo ilmihii waa kala dhaqaaqnay asxaabtay waan kala dhaqaaqnay dadkiina xaggaabay iga mareen aniga keligay baa xaggaa socda buu yidhi dee dhibaatadaa dhibaato ka weyn may jirtaa buu yidhi markaa sheekhu u eego wuxuu gartay ninkan isagiyo ilaahay jalla wacalaa xidhiidhkii u dhaxeeya inuu meesha ka maqan yahay buu garto su'aal buu weydiiyo wuxuu ku yidhi 100 qof inaad raalli gelisaa iyo mid keliya inaad raalli gelisaa bal kala dooro markaa buu yidhi midka keliya fudud buu yidhi marka weliba midka keliya hadduu raalli kaa noqdood raalli gelisid 100ka kale isagaa kaa raalli gelin buu ku yidhi markaa buu yidhi waa kee markaasuu yidhi waa allah markaa buu yidhi sheekh khayr allah ku siiye buu yidhi halkii layga haystaad ii sheegtay buu yidhi nambarkaasaa iga qaldanaa buu yidhi xidhiidhkii anigiiyo ilaahay baa meesha ka baxay buu yidhi xidhiidhkii addoon iyo ilaahay ka dhaxeeyey ayaan gooyey deedna waxaan noqday taarig caasi baan noqday haafil baan noqday baciid can raxmat illaahi baan noqday khayr allaha ku siiyo halkii layga haystaad ii sheegtee ilaahay baan u toobad keenayaa buu yidhi dadku maanta nolosha inta badan way fahmi laayihiin war noloshaada walaalayaal waxaad ku fahmi laadahay wax kale ma aha haddaad ilaahay ku abuuray wuxuu ku abuurtay haddaad garatay waa cibaadadiisa waa daacaddiisa waa cabsidiisa waa ilaahay raalligelintiisa waa ilaahay ridihiisa inaad raadisaa taaba adiga lagu abuurtee haddaad arrinkaa ku dadaashid noloshaada oo dhan ilaahay baa kuu hagaajin yaa inoo hagaajin allah baa inoo hagaajin nolol wanaagsan baad doonaysaa shaqo wanaagsan baad doonaysaa gabadh wanaagsan baad doonaysaa shaqo wanaagsan baad doonaysaa ubad wanaagsan baad doonaysaa madax wanaagsan baad doonaysaa dadnimo wanaagsan baad doonaysaa soo ma doonayno balinka doonayo gacanta taag waa wada doonaynaa soo ma nolol fiican gabadh fiican oo diin leh shaqo wanaagsan oo barakaysan dawlad wanaagsan oo khadamaad waxaad uga baahnayd oo dhan aad ka hesho dal wanaagsan dad wanaagsan wax wanaagsan buu qofka bini aadanku rabaa qof bini aadanoo wax un raba adduunka dusheeda ma jooga baa la yidhi dabiicadda insaanka caynkaas maadaama wax wanaagsan aad doonaysid
ilaahayna wuxuu rabaa inaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan intaasay ku xidhan tahay bas